بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعنا ونكسن داود يلي إذا لهانتينبا كل سو دوادا برنامج عصب oo aan ugu magac darnay talaado iyo talawadaad. barnaamijkan oo talaado walba ka bixi doona janalka qariijiqod waxaana halkan inkaga daadihin doona Faisal Bishaar Aligo iyo Nistaaxa Maxamed Dhoore. waxaan ku bilownay barnaamijkan daawad yal dadka doonaya in lala taliyo ha ahaato dhanka jaceelka ama arrimaha qoyska. haddaba haddii aad doonaysid in lagula taliyo ama aad tahay dhibanana la soo wadaagay arrinta haysato si aan ugu gudbino taladaada aan u soo jeedino daawadayaashana ku xirnaan doona barnaamijkan cusub. daawad yal haddii aan ku bilowno qofka ugu horeeyo ee barnaamijkan usbuucan aan ku bilaawayno waxa uu yahay wiil Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii oo lagu magacaabo Ibrahim. wuxuuna ku bilaabayaa qisada haysata sida tan. waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Ibrahim. waxaan joogaa xaafadda Islii. waxaan ahay dhibana 5 sano ku dhawaad daris laha jaceyl. waxay ahayd 2014 anigoo ku sugan magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. waxaan jaceyl u qaaday gabar Soomaaliyeed. waxaana waqtiga ayada isla joognay Mandheera markii laga soo wareegay bilooyin kadib waxay aaday magaalada Nairobi oo waxbarasho ay halka ka bilowday. waxaana aan u sheegtay jaceylka aan u qaaday wayna iga diiday ayuu yiri wiilka Soomaaliyeed ee nala soo wadaagay arrinta haysato. waxayna igu tiri wiil kale ayaan jeclahay ee sidaas ula soco abow anina jaceyl xad dhaaf ah ayaan isu haynaa wiilka ayaa intaasi ku daray inuu u hayo jaceyl xad dhaaf ah gabarta. 3 sano kadib ayaan haddana la xiriiray anigoo weli u hayo jaceylka. haddana waxaan u sheegay inaan weli jeclahay oo xitaa haddii la guursado oo Ilaahay calaf qof kale ugu daro oo aan hilmaami karin. wuxuu intaasi ku daray wiilkan deriska laha jaceylka in ilaa iyo hadda uu soo loodin laayahay ama uu soo liicin laayahay gabarta uu jaceylka u qaaday. marka wuxuu ka codsanayaa in daawadayaasha ku xirnaan doona barnaamijkan talada iyo talawadaagga aan ugu magac darnay inay talo u soo jeediyaan. haddaba daawadayaal maxaad kula talin lahayd wiilkaasi dhibanaha jaceylka la ah? Nistaaxa adiga ahaan dhankaada maxaad kula talin lahayd wiilkan la soo wadaagay talada? aniga ahaan waxaan kula talin lahaa wiilkan jaceylkiisa inuu juhdi badan ku bixiyo. calaf hadduu ku leeyahay wuu helayaa, haddii kalena haddii calaf uusan ku lahayn halkaas bay uga dhamaan doontaa. aan ku bilaabo anigana qisada dhankayga ah. qisadan waxa ay ku dhacday gabar Soomaaliyeed oo joogta dalka Kenya oo lagu magacaabo Maqdis. waxay tiri wiil ayaan isjeclayn, waliba wiilkan Saa'id ayuu ii jeclaa, anigana waan jeclaa. heer waxaan gaarnay aanan daqiiqad kala maarmin oo haddii aanan is arag habeenkii qofna ma seexan jirin. maalmaha kamida ayaa waxaa arkay jaceylkeena xad dhaafka ah wiil kale oo aan qaraabo ahayn. wiilkan qaraabada ahayn wuxuu isku dayay in uu na kala dheereeyo ani iyo wiilkii aan isjeclayn. heer wuxuu gaaray uu jacayl been ah igu abuuro. waxaan arkay anigoo dhankiisa u batay kii aan qaraabada ahayn oo aan iloobay kii aan isjeclayn. markaan jeclaaday kan qaraabada ahayn oo aan Saa'id u jeclaaday si ka daran sidii hore oo aan u jeclaa wiilka kale. sidii hore aan u jeclaa wiilka kale u jeclaa aan iloobay ayuu igu jawaabay kii aan qaraabada ahayn aniga hal habeen xataa kuma jeclaan, laakiin waxaan jeclaan jaceylka beenta ah kuugu sheegay. waxaan rabay in aan wiilka reer hebel in aan ka reebo. sidaas ayaan beenta kuugu sheegay. markuu sidaas iigu jawaabay kama harine ee jacayl aan u qabay ayaa xad dhaaf ahaa. waa si laba jibaarmay. heer waxaan gaaray asagoo idho hoteelkayga mar dambe ma soo wici kartid oo i caayo ayaan haddana waxaan moodaa cayda uu i caynayo in ay ammaan tahay aniga xaggayga, waayo waxaa jeclahay si xad dhaaf ah. sanadkii 2013 ayaa waxaa dhacay in aan u guurno Itoobiya aniga iyo familkayga. markaas ayay talafara ka baxday, waayo awal waan la joogay dalka oo waan
oo waan ogaan jiray waxa uu ku sugan yahay, laakiin markaan ka dheeraaday jacaylkii aan u qabay waa sii laba jibaarmay. heer waxaan gaaray aan soo waco oo uusan si fiican iigu jawaabin oo uu dhaho maxaad ii soo wacad, haddaad dal kale aaday xataa miyaadan idayn karin, ma niman ayaad adduunka ka weyday iyo hadallo kale. aniga hadalkaas xumaan uma arko, waayo waxaan ahay naf wax jecel. markii dhowr bilood laga joogo ayaan haddana soo wacay. gabar ayaa iga qabatay teelka. waan yaabay, waxaan isdhahay waa maxay gabadhan. markaas ayaan ku iri wiilkii teelka lahaa aawey, wuu maqan yahay ayay i tiri. maxaan u sheegaa, xaaskiisa ayaan ahay. qac, anigii naxdin waan jaray ayay tiri koolkii. mar kale ayaan ku celiyey, asagii ayaa iga qabta oo iigu jawaabay waan guursaday ee ku bishaarayso. markaan afkiisa ka hubsaday miyirka ayaa iga tegay. cabbaar kadib waan soo naaxay oo haddana ku celiyey oo ku iri walaalo 4 ayaa kuu bannaan, midda 4aad xataa waa iga dhigi kartaa. wax aan kaa dhigaynana ma lahane, nooga bax qadka ayuu iigu jawaabay, iyo hadallo kale oo aflagaade ah. kadib waan soo laabanay aniga iyo familkayga oo Kenya ayaan ku soo laabanay 2014. markaas ayaan wacay oo is-xog wareysana oo igu yiri gabadhii aan qabay waan furay, ee nafsigaagii ayaa qabtay, iga raali noqo, waan qaldamay. runtii kama filanay inuu saas idhahayo. waan farxay oo ku iri ani jacayl saa'id ayaan kuu qabaa, wax allaala waxaa idhahdana waan kuu yeelayaa. waxa uu igu jawaabay ma isguursanaa, haa ayaan ugu jawaabay. kadib wiilkii waan isguursanay, calaf ayaan isku yeelanay. kadib wiilkii waa igu xumaaday oo heer wuxuu gaaray uu i garaaco anigoo xaamilo ah ama culus. wuxuu i garaacaba wiil ayaan u dhalay. waxaan dilkiisa u adkaystaba waxa uu iigu daray furiin aanan filanaynin. wiilkayga ayaan iska korsaday. mar kale ayuu ii soo laabtay oo ileeyahay aan isku noqono. wiilkii hore oo guursan weli ayaa asna idhahayo sidaydii ayaan kuu jeclahay oo in aan ku guursado ayaan rabaa. marka dadweynaha Soomaaliyeed tala ayaan uga baahanahay, midkee raacaa, makaan jeclahay laakiin aan ii roonayn, mase midka i jecel. talada waa xaqiina dadweyne. istaxay horta arinta jaceelka wax aad u dhib badan. wax aad heer xataa wuxuu gaar uu qabiil isku bedelo. heer wuxuu gaar bal fiir gabadhaas dulqaadkeeda. nin walba lana muris Ilaahay u sahla. waa sidaas. kulay arimaha jaceelka waa dhib badan yihiin. daawadayaal waxa intaas inooga barnaamijkeena talaadi iyo talawada. waxaad noogu soo gudbin kartaan wixii talo iyo tusaale ah ciwaanada shaashada inkaga muuqda ama comment-ka video-gan. barnaamijkan waxa idin daadihinaya anagoo kala ah Faisal Bishaar Aligo iyo Nasteexa Maxamed Dawre. intaan barnaamijkan lamid ah kulmi doono waxaan idiga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.